عادوا بلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن مع عميل waxaan tijaabinaynaa mashiintan ayada ah insha Allah taala. Mashiintan markaan tijaabinayno insha Allah taala waxa ka kooban tahay ayaan ku hormari doonaa insha Allah taala. Waxaan aragnaa halkan main unit ama screen-kii inuu meesha noo yaalo. Waxaan meesha halkan noo yaalo mataqaana waa laba badhan iyo calaamado kale oo mataqaana yar yar ee noo saaran. Kan haddaan ku hormarno waxa weeye mataqaana afar shaqo ayuu qabtaa. Shaqada koobaad waxay tahay mataqaana waa on in laga shido. sidaas oo kale in laga damiyo waa u jeedin power off iyo power on labadaba waa isku yahay sidaas oo kale xasaasiyadda ay leedahay mashiintu dareenka ay leedahay na waa laga dheereeyaa waana laga gaabiyaa badhankan kale waxaa loogu talagalay all metal wax loo yaqaano tusaale kale markii aan rabo inaan biraha dhan ay mashiintu ii sheegto badhankaana mataqaana isagana aan furan doonaa insha Allah taala mutlaq ayaa ka dhigi doonaa sidaas oo kale waxay isaguna badhankan oo ka shaqeeya threshold waxa la codadka kale ayaa ku kala bedelan doontaa insha Allah taala mashiintani sida caadiga waxa ku shaqeynayna mas'uulta electromagnetic sound waxa la yiraahdo ay ku shaqeyn doontaa ama cod koronteed ay ku shaqeyn doontaa oo waxa markay aragto waxay sameyn doontaa mataqaana cod ay bixin doontaa codkaas marka wuxuu sameyn doonaa mataqaana mas'uulta noocyo kala duwan ka dhigi doontaa biraha aadan u baahnayn oo kale cod gooniya saaran doonta dahabka oo kale cod gooniya u sameyn doontaa insha Allah taala sidaas oo kale waxa sameyn kartaa inaad mataqaana mas'uulta birto dhan ba fasaxatid maadaama mataqaana mas'uulta qolada inta badan mataqaana qalabkan soo saara ay mataqaana anaga mataqaana Afrika ama Soomaaliya aan dahabka raadina laakiin biro dahabka ka qaalisan maadaama ay jiraan ayay iyagu waxa ugu talagaleen inay sameeyaan birto dhanba biro badan oo ilaa mataqaana qaaliya ayaa ku jira wadanka sida daraadeeda labadaas badan marka waan kala fahmay waxa kale oo jira wax loo yaqaan mataqaana mas'uultahay laba badan mataqaana mas'uultahay calaamad falaartan oo xagga u socoto oo balaas ah macnaha lagu daray ah iyo falaartan oo xagga u soo socoto oo minus ah iyo badhankan bartamaha ku yaalo oo GG ku qoran tahay ama ay ku qoran tahay pin pointer tusaale kale calaamadan minusta markii aan mataqaana mas'uulta mashiinta aan shidana ayaan ogaan doonaa shaqada ay noo qaban doonto GG-dan ama badhankaanina wuxuu noo qabtaa waxa la yiraahdo mas'uulta waa ground balance GG-dani waa ground balance sidaas oo kale pin pointer noo qabtaa badhankan isaguna laba shaqo ayuu qabtaa sidaad arkaysid laba falaaro ayaa ka baxaysa pin pointerka marka isticmaalayo ayay targetkii mataqaana mas'uulta on the spot meeshii mataqaana mas'uulta goobtii laftigeedii ay wax ku jireen ayay si gooniya mataqaana ku tusin doontaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala waxaan shidi doonaa marka mashiinta intaana shidin ka hor inta waxay ku leedahay mataqaana mas'uultahay godadkii ama mataqaana sanaacadu meesha ka gelisay kan waa midka telefoonka iyo foonka ama sanaacadaha dhigaha loogu talagalay telefoonka hadda aan isticmaalayno kale dhigtiisana oo isticmaali kartaa kanina waa midka weyn ee wadatay mataqaana halka ma saaran dhigtaanina waxay ka geli doontaa insha Allah taala waxa weeye mataqaana godkan weyn bay geli doontaa dhigtani godkan weyn baa loogu talagalay halka waxa inoo saaran battery batterigaas marka waxa mataqaana waa 9V ama mataqaana mas'uulta 9 voltage waxa loo yaqaano halka xabay ku shaqeyn doontaa insha Allah taala marka waan aragnaa insha Allah taala markaan xirayna sidaas aan sameyn doonaa insha Allah taala halkan waxa inoo saaran mataqaana mas'uulta cable-kan ama mataqaana mas'uulta fiiladan marka waxay isku xirtaa cagafta coil ilaa cagaftana waa waxa mataqaana dhulka mataqaana wax ka soo qabanaya kadibna waxay u soo gudbin doontaa main unitka ama mataqaana mas'uulta muxuu ahaa mashiinta weyn halkaani marka kaga hadlantaa insha Allah taala sida caadiga ah tan marka xaramo waa sidaas weeye waxaan sameyn doonaa marka intaan kale tan waa iska caadi waa birihii mataqaana dadka curyamada ama birahan caadiga aan qaadano kale sida loo furayay kale markaan u furayno ayaa mataqaana badhankan aan riixay ayaan kala bixin doonaa wax weyn maahan tanina markaan xiriyo tusaale kale waxa leedahay mataqaana falaartaas cagaftaas tiidaasi markay mataqaana tan coil baa la yiraahdaa biyuhu ma galayaan saacada ilaa intan biyo waad isticmaali karaysaa waa water roobka inta baad bac ka gelin ka shan doontaa insha Allah taala inta ayaad plastic ku sameyn kartaa biyo ma ahana badal la dhexgeli kartaa haddaad doonto intaad ka xiran doontaa sharootadii telefoonkan oo kale sida sharoot u gelin lahayd oo kale aad u gelinaysaa inta laakiin biyaha caadiga aad dhexgelin doontaa insha Allah taala intaan biyo wax ma kala baayaan coilkanina waxa waaye BB coil waxa waaye waterproof waaye biyo ma galayaan tiidan marka waxay tusinaysaa in falaarta iyo tiida isku aadan yihiin oo arki kartaa falaarta iyo tiida haddii marka upside down aan u xiro oo sida kale aad xiro mataqaana mas'uulta waxa iga qaldamaya systemkii marka insha Allah taala hadda way noo xiranta sidii caadiga ahayd waxaan galeynaa marka mataqaana shaqadii caadiga ahayd waxaan shidi doonaa marka mashiintii haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala halkaana waxa inoo saaran igu dhaway waxaan ku hayaa mataqaana halkaas gram oo dahabka ee mataqaana dhiga gashiga loo yaqaan dumarku gashtaan waa 21 mataqaana mas'uulta 21k karat oo dahab ah weeye halkaasna waxaa noo saaran musmaar caadi ah insha Allah taala waxa weeye mataqaana waa ferras waa birta daxalisata weeye insha Allah taala halkaas inoo online doontaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala mashiintii aan shidayna marka waan shidi doonaa ila soo waka halkan marka mashiintii way noo shidan tahay waxayna tusin doontaa insha Allah taala halkan signal ayay noo tusin doontaa
signalku marka waxaa weeye wax kale tama hee signalku shay aad raadinaysa saacadana macnaha signal dhawaaqa dareenka waxa aad dareemaysa macnaheedu tusaale kale shaygu inuu ku dhow yahay inuu ka fog yahay meesha ku tusinaysa ayaa signal la yiraahdaa tusaale ilaa bahashana ayadu kuma shaqeyso mataqaana masuulta anteenooyin sida hormuud kala dhawaaqayda Soomaad garan markastay bahashanu fuul ku soo noqoto oo signalku ku soo buuxsamo shaygu waa ku dhow yahay markastoo shaygu ka yaraado shaygaasi waxa weeye waa ka fog yahay halkaana target AD screen-kan ayaa waxay noogu soo qori doontaa insha Allah taala walaal sidaad arkaysid lambarada ay noogu soo qori doontaa lambarada marka hore waxay yihiin 0 eber ka bilow ilaa 100 inta u dhaxaysa waa eber ilaa 100 inta u dhaxaysa lambaradan ayaan rabnaa inaan sharaxaad ka bixino lambaradan walaal waxa u kala qaybsan macaadinta ay mashiintu sheegayso